waxaa muhiim ah in la isweydiisaan horta baabajey yaa nebi u ah dhifiq qucin qaawan qucin canab midda la leeyahay Nairobi joogta iyadana gaalo waay muslimad maaha kaafirad aan ilaahay rumaysnayn waay gabadha maalin walba xumaan baraha bulshada ku fisa salaad lagama aqbalayo soom lagama aqbalayo halkaa ayaan kaadi u fadhiistay mid baa isawiray hadaad aragtaan alaabtii qaaliga ahayd haweenka Soomaaliyeed alla oo si gaar u siiyay ee la wada jeclaay ee la wada raadinayay aniga iska li ogaada baabajey dadka ku xiran ayaa waxay ugu kaalmeeyaan qu'in qaawan oo allahi abuurtay aan rumaysnayn xijaab ma rumaysna guur ma rumaysna asuraad ma rumaysna intaba ida inkirta xariistiyo qofa bani aadanimadii qof ah quruxdii qof ah lejan dhalay waa ku sitaa hore u socod inay haweenka ay tiraado jirkiina lacag ka sameeya gaalnimo iyo sharmuutinimo ay faafisaa arkan ku adkayneen oo markuu hadlay aad moodo inay wax ku dhigan yihiin ay yiraahdo shantaay umada shartaada ka ilaali oo murtad ah noo sameeyay bismillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah waxaan ilaahay weynayna abuuray diin dhamaystiran noogu deeqay muslim afkaar iyo mawaadiir rumaysan naga dhigay marka xigta waxaan u mahad celinayaa bulshada muslimka ee islaamku xaraash iyo xoolo jaban uunu ahayn dadka diintooda ay doortaan ilaashadaan waqti geliyaan juhdi geliyaan wax ay ku bedelanayaan marnaba ayna jirin dadka ayaan u mahad celinayaa dal iyo dibad Soomaali meel walba ku nooshahay waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo xanuunkii aniga i soo gaaray tacsidii iyo geeridii ku timi hooyaday aabahay dhashay abooto Butule Fiidow dadkii iga tacsiyeyay gaar ahaan dadka page-ka Facebook-ga Sheekh Shantay ku xiran dadka koolka igu soo wacay dal iyo dibad ku nool aad baan ugu mahad celinayaa maxaa yeelay dadku haday dad muslim yihiin waa inay xanuunka isla qaybsadaan intaa waa mahad celin malmahan tuulo la yiraahdo Xaaji Cali oo aan ku dhashay awooto ku dhimatay ayaan jiray waan kala maqnaynay waxaan rabaa maanta inaan xoogaa yar iftiimiyo waa kuma baabajey ma aaminsan yahay shariicada islaamka baabajey inuu ilaaliyo xishoodka iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed wixii Allah faray inuu ummadda u ilaaliyo diyaar muu yahay baabajey dhalinyarta asaga wax moodo amba ku xiran ama meeshuu nolosha ka gaaray hiigsanaya inuuna baadiyinin dhaqan xun iyo suurad xunna inuuna kaga tigin ilaa uu tigi doonaa adduunyada anigu iyo asugu waan dhimanaynaahe diyaar muu yahay baabajey waa nin markaa nin sifeeya islaamku dadka waa qaybiyey bulshada Soomaaliyeed baan su'aasha weydiinayna dhaqamada baabajey waan aragnaa ee baabajey halkay ku tirina islaamku dadka waa qaybiyey saddex ugu qaybiyey almu'minuun almunaafiquun alkaafiruun hal eray aniga ugu qusaysa baabajey muslim iyo muumin dhaqankood ma laha baabajey markuu safrayo waxaa sokootiyo haweenka ajaanibta safarkii hadda ugu dambeeyay oo Malaysia uu ku tagay Sheekhlay ay asaga isku dhow yihiin oo inkaar gaara qabta maanta ficil ay tarmeen
maanta ficid ay reer leeyihiin tolka ay gabadha ka dhalatay marka ay kulmaan maanta la tiriyo la leeyahay heblaayo guri wanaagsan bay ku jirtaa qaaraan baa qabto nin ladan baa qabo intaa ha noogula qoro ay ficid marayaan iyaduna maalin walba waxay ku jirtaa nin ajnabi inay ag fadhido waa sheexlaay baabajay maalinkuu baxayay waxaa toorno tootomiya mase toorno afka u gelinayay erbaadiyaha ma garanaye saan miigii ugu imidaa iga daacada cariifey iyo shiniyo iyo jeebey iyo qooroqondo ayaa afka u geliyeen baabajey wuxuu muqdisho ku hayay horta malaysia u la tegay hadda xalay shalay wuxuu qabtay clip ma maqdac ama video socdaal mid la yidhaahdo reer malaysia gadaal dhinacan ka xigay laba dumar oo u dhexeey waxaa muhiim ah in la isweydiisaan horta baabajey yaa nebi u ah nebigayna sala allahu calayhi wasalama caaisha tilmaamtay allana wuu tilmaamay maxay caaisha nebigu ku tilmaamtay